dhacday ficlan waxa kamid ah calaamadaha uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ummadda nabiga sallallahu alayhi wasallam oo raacda ummadaha kale dhaqankooda afkaartooda akhlaaqdooda raaca ummadaha kale iyo mujtamacaadka kale ummadiisu iska daba gasha oo wixii kuwa dhaqan u ahaa soo qaata oo wixii kuwa diin u ahaa diin ka dhigta ha xumaado ha fiicnaado iska daba galo ummada kale iska daba dhigta calaamadaha ay ka mid calaamadaha qiyaamadu inay dhacayso ku tusaya ay soo dhawaatay bay kamid tahay xadiis abi hurayra macnaha sheegaya oo nabigu sallallahu alayhi wasallam la taqumu sa'a hatta ta'khudha ummati bi akhdhi alqurun qablaha ummadaydu ila ummadihi hore ay ku dayato qiyaamadu iman mayso shibran bi shibrin wa dira'an bi dira' nudun waxaan ila saako iyo nudun ila ummadaydu ummadaha kale ay u daba gasho markaas waxa ya rasuulullah ummadaha kale sheegayso ma faris iyo rumba markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa man an-nas illa ulaik madadan kuwa ahay baaba jiraba soo kuwa uu ma riwaayo kale waxay sheegaysaa Abu Sa'id xadiiskiisa Bukhari Muslim ay soo saareen nabigu waxay ku yiraahdeen ya rasuulullah al-yahuda wan-nasara ummadaha aad sheegayso ma yahuudi iyo nasara markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam faman ya kale marka ama furus iyo rum ha noqoto ama yahuudi iyo nasara ha noqoto ummadiisu inay ummadaha kale iska daba gasho ayadana waxay kamid tahay calaamaadka ku tusaya qiyaamadu inay dhici doonto ilaa nabigu wuxuu gaarsiiyay sallallahu alayhi wasallam hatta law dakhalu juhra dabb la dakhaltumuh hatta haday dhacdo inay godka bahasha leeyahay abeesa lugalayda godkeeda inay galaan waad ka daba galaysaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani abeesa lugalayda godkeedu meel bini aadan gali kara ma aha waa meel qarmuun oo hadana xiriiri ah oo hadana mugdi ah hatta meesha haday galaan qaar ka daba galaad yeelan doontaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam bal ablagh min hada rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadii laga helo qaar ayaga kamid ah oo hooyadood jidka kala barkiisa ku qabsanaya qaar idin kamid oo raaca un baa la heli oo hooyadii jidka barsameeda ku qabsanaya yaani waxa weeyaan sida aad wax u moodeysaan ummadaha kale iyo waxay haystaan waana sidii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam maanta mujtamaca muslimka kii nin ahaana reer galbeed dhaqankooda nimankooda iyo qaabkay u dhaqmaan yu taqliidinaya oo raadinaya ilbaxnimo iyo way aragnimo iyo reer magaalnimo iyo fiicnaan baa waxay la gashay ninka cad wuxuu sameynaya samee wayla hadaan sameynin min jiraba ma tiid reer baadiya tahay nolosha waad ka dhacsan tahay wax jira ma tiid haweentii reer galbeedku waxay sameynaysaa bay ku ibtilaysan tahay hadii isqurxi la yiri hadii la bisan la yiri hadii wax kasto maqaayisti oo dhan waxay noqotay wixii uu reer galbeed lagu arkayo ninka cad iyo naagta cad soo tii nabigu sheegay ma sallallahu alayhi wasallam ila wixii wasakhoodii iyo akhlaaq xumadoodii iyo dhaqan xumadoodii iyo mabaadi xumadoodii iyo dad badan ay u qaateen ba inay tahay wanaag iyo horumar iyo ilbaxnimo inay tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka sii waramay arrintaasi markay dhacdo qiyaamadii waa soo dhowdahay maanta maalin ay ka daran tahay muslimiinta ma soo marin fi taariikh maanta maalin ay ka daran tahay ma soo marin wayna ka sii dari doontaa raacidaasi mujtamacaadkaasi reer galbeedka iyo gaalada iyo dhaqankooda la raadinayo la dabagalayo oo sidoo kale la iska dhigayo nabigu wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam calaamadaha ku tusaya inay qiyaamadu dhowdahay waxa kamid ah oo nabigu